waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeynaa maalmaha qiimaha badan ee xorriyadda xasuusta halgankii geesiyaasheena dhiigii awowyadeen dhabar adaygii ayeeyooyinkeen iyo dadaalkii lagu hantiyay dawladnimadeena madax banaanideena iyo gobonnimadeena dhaxalkaas qaaliga ah wuxuu ina xasuusinayaa in markasta aan sii dhisno wixii loo soo halgamay laguna bedelo horumar muuqda oo taabanaya nolosha bulshada maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay aqoon hal abuur iyo tiknoolajiyad horseeda adeegyo hufan fursado cusub iyo horumar waara taas waa doorka ay Tabaarag ICT ka qaadanaysa dhismaha dalka annagoo adeegsanayna xalal tiknoolajiyadeed oo casri ah waxaan gacan ka geysanay fududeynta adeegyada sare u qaadida hufnaanta shaqada iyo dardargelinta isbeddelka dhijitaalka ah ee ganacsiga iyo bulshada Soomaaliyeed saameyntaas waxa laga dareemayaa nolol maalmeedka shacabka iyadoo hay'adaha dawladda ganacsiyada xarumaha caafimaadka goobaha waxbarashada iyo xarumo kale oo badan ay ku shaqeeyaan nidaamyo casri ah oo kor u qaadaya wax soo saarka tayada adeegga hufnaanta shaqada iyo maamulka waxaan aaminsanahay in madax banaanida dhabta ah aysan ku ekeen xorriyadii la helay balse ay tahay in maalin kasta la sii dhiso mustaqbal ay hormuud u yihiin aqoon hal abuur iyo data ay kaabo u tahay tiknoolajiyada taasoo u adeegaysa bulshada hambalyo 1 Luuliya iyo maalmaha xorriyadeena